labiyo tobankii cashay ugu dambeysay مثلا dadkii ka soo qaatay meelaha kan oo kale waxaad arkaysaa inuu kacay taqriiban 97 ama 96% weeye يعني almost waa double lacagtaadii qofka halkaa ka soo gashaday lacagtiisi double bay noqotay marka هذه نعمة من الله weeye waa نعمة من الله meel xalaal aad oo ka shaqaysanaya oo lacag gashaday oo aad lacag fiican ka heshay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo coin yar oo la dhaho STBT marka ugu horeysa ku saliya nabigeena xabiibkeena عليه أفضل الصلاة والسلام سيدو إلهي سبحانه وتعالى هو أمري يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حقيقة كوين كاسو وكوين أفر إلى تنكي ساعدود كور وقعي هذا يقولون كاركتان مرة ويتوح مري 40% هذا هو سوير دات حوجا كوين كاسو أفر إلى تنكي ساعدود سي غير عادي أيو الدوري marka price-kiisuna xaqiiqatan aad buu jaban yahay asxaab badan baan arkaa oo galay oo coin-ka wax ka raadinayay waa qof nasiib fiican qofkii moogta meel hoose ka soo qaatay laakiin iska ilaaliya coin-ku marka ay meel sare gaadhaan lagama daba tago يعني تاسع خطر كده oo dadku moogtahay ay dhibaatooyin ku arkaanta marka coin-kan waa coin xalaal weeye wax dhibaato kama jirto alxamdulillah rabbil alamin waana mashruuc project fiican buu leeyahay standard tokenization protocol mashruuciisu mashruuc fiican weeye xaqiiqatan waxaa lagu talagalay dhismaha networkyada decentralized ka sida hore u sheegi jiray si digital asset-ka ama hantida asset-kaasi ay dadku uga faa'iideystaan STBT waxa weeye waa link ama waa wax u dhaxeeya dhexdhexaad ah blockchain-nada kala duwan ee ku dul dhisan web3-ga yani waa amazing web3-gi ayaa si fiican loo dhexgalay STB waxay sii deysay networka Verse ama shabakada Verse bay sii deysay waana chain ama silsilado ka mid ah dabaqada labaad ee blockchain-ka layer 2 aynu u naqaano iyadoo ka qayb qaadanaysa in la hagaajiyo generationka labaad ee DAOs iyo decentralized application-nada waa hawlo aad u sareeya iyo xawaare cajiib ah oo ragga moogtay ka shaqeeya ayaa si fiican arrimaha u dhexgalay مشروع خدمات فربدان ببحية هداد ويب سايت كيس اكتان wax kasta waad ku arki doontaan mashaariicda uu bixiyo iyo barnaamijyada ku dhex jiro coinku nidaamo farbadan oo asaasi ah ayaa loo isticmaalaa sida blockzone.com oo kale isagoo u fasaxaya dadka isticmaalaya inuu ku shaariko waxyaalaha loo yaqaano airdropska iyo abaalmarinta dadka la siiyo minerska iyo offerada loo yaqaano micro token STBT waxaa loo isticmaalaa si loogu bixiyo khidmadaha ama serviceka waxyaalaha ku dhex jira ecosystemka ama nidaam albi'i ecosystemka mashaariicda kala duwan iyo dadka serviceda bixinaya iyo dadka lacagaha diraya iyo dadka investorka ah waxaasoo dhan waa loo isticmaalaa STBT marka coin-kani waa coin alxamdulillah xalaala dadka ku jira waa u hambalyeynaya waxaan leeyahay alxamdulillah coin fiican baad doorateen walaalo badanna waan arkay iyagoo coinan badan oo xaraan ah oo qalad ah galay oo coin-kaasu kor u kaceen xaqiiqatan lacag far badan laga helay marka taana iska ilaaliya haddii aynu coin-ka eegno labiyo tobankii cashay ugu dambeysay مثلا dadkii ka soo qaatay meelaha kan oo kale waxaad arkaysaa inuu kacay taqriiban 97 ama 96% weeye يعني almost waa double lacagtaadii qofka halkaa ka soo gashaday lacagtiisi double bay noqotay marka هذه نعمة من الله weeye waa نعمة من الله meel xalaal aad oo ka shaqaysanaya oo lacag gashaday oo aad lacag fiican ka heshay هذا رزق من الله weeye ما شاء الله كوينka xalaasha ah weligaa malgasho ka faa'iideyso adiga iyo ubadkaaga ku anfaci doona walaakiin iska ilaaliya waxyaalaha xaraanta laakiin waxaan waxay u baahan yihiin baaritaan bay baahan inaad wixii baratid meel ha gelin mugdi ah adiga oo isle meesha lacag ka hel hadhowtu wax weeye dhib weyn ayaa kusoo gaaraysa marka xalaasha ilaaliya daa'iman baynu nirahnaa maadaama aynu ka ganacsanno cryptocurrency-ga majority website-yada aynu ku aragno adduunkan crypto ka hadlaya waa little one ama laba aad ka arkaysaa xalaal ka hadlaya laakiin daa'iman waxaa muhiimsan wixii xalaashaha in aad maalgashatid ilaahay idin barkeeyo sii share gareeya fiidiyoda ummaddu ka faa'iidaysatay waana walaalkiin axmed aadam weeye wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh